marka waxaan maanta ugu dambeysin doonaa accessory structure of the skin, waxyaabaha caawiya skinka ama skinka ka midka ah oo ay ka mid yihiin skin hair, timihii skinka ku yaalay, skin glandskii qanjidhadii skinka, nailskii ama cidiyihii, kuwaasi waa qolooyin la shaqeeya systemka la yidhaahdo integumentary muxuu ahaye system way. They have host important function, waxay hayaan shaqo weyn bay hayaan runtii oo muhiim ah. For example, hair tusaale ahaan, hair and nails protective board waxay ilaaliyaan jirka, ilaaliyaan cidiyaha iyo maxay timihuba way ilaaliyaan. way sweet glandsku maxay qabtaan iyagu? helbis waxay caawiyaan regulating jirku carin sameeyo, body temperature, weliba xilliga maxay temperatureka ama jirka in temperatureka jirkeena ama heerkulka jirkeena ayuu cariyaa. marka shaqooyin noocaas ayuu qabtaa. waayahay accessorygu marka milmil baynu qaadan doonaa. waayahay qodobka ka koowaad aynu qaadan doono waxaa ka mid ah hair, timihii headsku bili wax la yidhaahdo are present on the most skin surface, dhammaan waxaa laga helaa jirka dushiisa. way sidoo kale marka laga reebo palmska, baabacooyinka, palmar surface of the fingerska, meelaha gacmaha u dhow muxuu fingerska xagga sare ee fingerska. way sidoo kale lugaha meesha la yidhaahdo raismal gaadhada oo kale haya, baabacadaas hoose oo kale haya lagama helo, laakiin jirka inta all jirka dhammaantii waa laga wada helaa. dadka qaar baan lahayn, dadka qaarna way leeyihiin. timihu markaa waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan. timihu waxay leeyihiin shaqooyinka halka ku qoran function of the hairs. timaha shaqooyinka ugu horeynta waxay hairs on the hair guards scalp from the injury then sunrise, waxay ka ilaalisaa waxa oo gaar u yahay, gaar u tahay muxuu ahaay ama gaar ilaaliyaan injury, dhaawacyada ka imanaya tusaale ahaan dhaawac kastoo ka imanaya dibadda, iyo sidoo kale sunrise-ka cadceeda, falaadhaha cadceeda. it also decreasing heat loss from scalp, dhammaan wuxuu hoos u dhigaa kuleyl kasta oo ka imanaya dibadda. way eyebrows and eyelashes protected, timaha xagga sare ku yaala ee suuniyaha iyo xiribaha waa kuwa la yidhaahdo protect eyes, ishay ilaaliyaan from foreign particles, wax dibadda kaga imanaya bay maxay ka ilaaliyaan. way touch receptorska ama hair root plexus qolinka la yidhaahdo ama timaha guntooda hoose associated with hair follicles, iyadoo la raacinayo meesha ay tintu kasoo baxdo hair follicleska la yidhaahdo are active, waxay activated, waxay cariyaan whenever hair is moving even slightly, marka kasto oo ay timuhu dhaqaaqaan, weliba slightly ayar la. way hadda imika timahaaga sare saa u yar dhaqaaqay, markaba dareenkaagu waa kacaya ama dareen waxaan ku taaro waxay markaa uu isla boosa gacanta. this hairs also function sensing light touch, markasta oo muxuu ahaye iftiin helo. tusaalahaan haddii gacantaadu tusaalahaan jirkaagu marka aad cadceed subaxdii kugu soo baxday ku qabato, markaa waad kacaysa waxaa cadceedii bay soo gaadhay jirkaa. markaa shaqooyinka uu qabto ama timuhu ay qabtaan bay ka mid yihiin. waaya qodobka shanaad weeye. waaya skin glandska ama qanjidhada skinka ku yaala ama diirkeena sare ku yaala waxaa ka mid ah sweet glandska oo kan hoose duuban ah. waay oo laga helo hypodermiska ama subcutaneous tissue-ga, barna laga helo dermiska. waay hair follicles oo halkii ay ka bixayeen timuhu. marka subcutaneous ama subcutaneous gland waa glandska caawiya saliida soo saara ama subaga jirka sare xagga qof waa la yiraahdaa waa oil, qofna waa la non oil weeyaan, qof saliid buu jirkiisu iska leeyahay, qofna waa qarax. way marka glandska qaabilsan baa jirka dushiisa laga helaa. way nailski wuxuu cidiyuhu markaa waa nails bed special structure of the epidermiska saraa laga helay. epidermisku muxuu saddex qaybood baynu soo qabnay, dermis iyo hypodermis. epidermisku wuxuu ahaa skinka layerka ugu sareeya ayaa laga helaa, waana tips of
our fingers on toes. waxaa laga helaa xagga sare ee cidiyaheena iyo cidiyaha hoose. cidiyaha hoose waxaa la yidhahdaa markaa suulasheena iyo faraheenaba waa laga helaa. marka nailsku waa cidiyaha. nailsku maxay markaa iyagu waxay waa blade tight, waa wax adag ama blade ah. way baked oo is haysta, head adag, dead oo dhintay, yani wax dhimashun weeyaa, waa wax dead ah weeyaan. keratinized epidermal cells waana keratiniinta waxa la yidhaahdo ee aadka fungisku u jecel yahay weeyaan. keratin baa la yidhaahdo, waa wax adag oo aad buu adag tahay. way each nails consist of nail body, waxay ka kooban tahay cidi kasta waxay ka kooban tahay muqaaye nail body bay ka kooban tahay, free edge bay ka kooban tahay xagga sare ah, nail root bartu ay ka soo baxayso cidida ah. nail body waa ka dhexe, xagga sare waxa la free edge, xagga hoosena waxa la yiraahdaa kaga jeesto jirka nail root baa la yiraahdaa. marka both fingernails and toenails protecting the digits, waxay ilaaliyaan labadoodaba digitska, yani farahan digitska waxa la yiraahdaa faraha. farahiinu waa digits, waxba ku tirsanaa digits baa la yiraahdaa, sida number digits la yiraahdo ayay wax ku tirsan. fingernails also aid in grasping, waxay naga caawisaa grasping, waxay wax la xigto ama la soo qabto. picking waa qabsasho, waa in wax lagu soo qabto. tusaale qodax waad iska saarsaa small objectska, waxyaabaha yar yar inaynu ku soo saarno ama ku soo qabano, waxyaabahaas ay naga caawiyaan. haddii meeshu bilaa cidiyahan lahayd waxaas aanay ka bixsaneen, waxa laga yaabaa inaanay wax badan inaanu ku soo qabsaneen. waayahay aan sii socdo oo aan ku sii socdo sawir kamid ah markaa idin tusay. sawirkaas waxa weeyaan waa not partiska ay ku koobeen. xagga ugu hooseysa waa nail rootska, xagga dhexna waa bodygi, xagga ugu sareeyana waxa weeye free edges baa la yiraahdaa. marka saddexdii qaybood oo ka kooban yihiin baa nimka ku sheegay. waka nail body, xagga hoose nail root baa la yiraahdaa. inta kale waa iska dheerdheeraada jidhku ka tirsan tahay lanuulaha iyo waxaas. way aad iyo aad baad u mahadsantihiin. markasta waxaynu isku dardaaraynaa in casharada qorno, sidoo kalena maxay aynu isla soo wadaagno waxyaabaha adkaaday oo kale